دبتنا فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل إلهي با استوصية وحكا قروح بدن ربي قوضوا أي أركيرو كلابا مجرته دبتنا النبي قول حكوفة السري للذين أحسنوا الحسنى والزيادة إن الزيادة ضطي كوا قالتنا دي إلهي القرآن كوكوت المامين ربي قوض أركيني كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إلهي ولا حجابي يكوا سمار كي ينبغي إلهي لي كوي ربي كقالوا بي الذنوب تووين قالي ثم إنهم لصالوا الجحيم ربي كتل مامية إذن شيء كوات إحسان هو إن نقرنه إن إلهي أركس مركز عبادات كالصباينس تاسي وحي كوكو بيريسا الله كعبسي يا إلهي أدوينيس سبحانه وتعالى هي عبادة وأتصفي عنه سميسو عبادة كستوات سمينيسو وأتصفي عن ودما يستيران وصلاة مركز تكون إنسان تكدك دكسين أركان تيدي وحيد يوردن أتسوى نكسن ولا تماد مرتبة الله بعد إحسان كبيرة هو مرتبة الحياء من الله ومرتبة وقفك قارئ إنه ربي كحشوضه ومرتبة وقفك الرميسي عبادته وقل ما همركو كتشريه نلشي سودن إنه الرميسيين إلهي أركيو فيستحي العبد من خالقه أن يجده حيث نهاه أو يفقد حيث أمره دبتنا قفك مسلم كاي وحاو كحشونية إنه إلهي كو أركم وحو كالريبي وحو كحشونية إنه السمين وايو إلهي أركو وحلا فرأي إساقو السمين واي وهداد wax kasta iskaga dhacdo waxay yiraahdaan culimada suluuk ilaahay baa waxaad ka dhigtay ahwanu naadiriina ilayk inta ku arkaysa ka u liita tusaale dadku hadday ku arkayaan ma laga yaabaa inaad hortooda zina ku samayso had samaynaysaa dhuumaad sileeday soomaaha meel aan lagaa garanaynin iyadaan ku garanaynin dadkan waad ku dhex ceeboobaysaa cidaan ku garanayn agteeda ku samee hadduu waalidkaa ku arkaya xuma ma samaynaysaa mise waad is ururinaysaa waad xishoonaysaa haddiiba ay caynkaa tahay inta ku arkaysa yuu ilaahay kuula liidanin markaa qofka mu'minkee dhabta ahi meel kastaba ha joogo markii hore alixsaan fi lcibaada baynu ka warramayna markan waxa weeyaan qofka mu'minka ahi meel kastaba ha jooga wuxuu rumaysay in rabbigii taalacanayo dabeetana wuxuu ka xishoonayaa in alle ku arko wuxuu ka reebay wuxuu ka xishoonayaa wax ilaahay faray inuu ka gaabiyo ilaahay baa quraanka isagoo munaafiqiin ama dad aan fiicnayn ka warramaya wuxuu leeyahay yastakhfuuna min annaas dadkay ka qarsanayaan baa ilaahay yidhi walaa yastakhfuuna min allah ilaahayse ka qarsan maayaan markay xadhig mareegayaan ama xumo samaynayaan oo caynkan bini aadamka waa iska qarinayaan baa ilaahay leeyahay walaa yastakhfuuna min allah wa huwa macahum ilaahay see kama xishoonayaan isagoo alle macooda oo og id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl waa marka ay habeenkii ku hadlayaan baa ilaahay leeyahay ku habeensanayaan wax aanu ilaahay raalli ka ahayn war ah wa kaana allahu bima yacmaluuna muxiita ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxay samaynayaan oo dhan muxiit buu ku yahay waa ku koobay idan masaladan waxay culammadu yidhaahdaan muraaqaba ama waxay yidhaahdaan waa dawaamu cilmi اlcabd waa addoonkoo aqoontiisa in rabbi arkaya ay joogto noqoto oo yaqiinsada in meel kasta uu joogo daahirkiisa iyo baatinkiisaba in rabbi ogyahay subxaanaه wa tacaala dabeetana cilmigaas ama yaqiintaasi waxay gaadhsiisaa inuu ilaahay subxaanaه wa tacaala ka xishoodo muraaqabadiisa dhowro waxay dhaxal siisaa inuu qof quman noqdo noloshiisa dhammaanteed waxay dhaxal siisaa inuu qof quman noqdo waxaad ogtahay haddaad saxaaro joogto iyo haddaad guri hoostii ku jirto iyo haddaad meel isku qariso ilaahay waa ku arkaya sawgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy yaclamu maa yaliju fi اlardi wamaa yakhruju minha ilaahay waa ogyahay waxa dhulka gala iyo waxa ka soo baxaba wamaa yanzilu min الsamaa wamaa yacruju fiiha
wixii cirka ka soo dega iyo wixii koraba ilaahay waa ogyahay wahuwa macakum aynamaa kuntum meel kastoo aad joogtaanna rabbi waa maciin wallaahu bimaa tacmaluuna basiir waxaan samaynaysaanna ilaahay subxaanaه wa tacaala waa arkaya idan waxaa ilaahay nebigiisii moxameda calayhi الsalaaةu wasalaam u tilmaamaya markuu khayrka samaynayey in ilaahay arkayo watawakal calى اlcaziizi الraxiim baa ilaah yidhi waxaad tala saarataa ilaaha haalibkee xooga badan raxiimkee naxariis badan aladii yaraaka xiina taquum wataqalubaka fi saajidiin allaha ku arkaya marka aada istaagto salaad isu taagtid iyo wataqalubaka fi saajidiin kuwa sujuudsan marka aad dhex socota allaha ku arkaya inahu huwa الsamiicu اlcaliim baa ilaahay leeyahy inahu huwa الsamiicu اlcaliim ilaahay waa ku maqlaya oo arkaya mansiladan qofka muslimkii markuu soo gaadho wuxuu soo gaadhaa xad uu xishoodo waxay dhahdaan mansiladii hore waa xad uu qofku ka boqo ilaahay awooddiisa almansila alula aynu ka warranay waxa weeyaan ilaahay baa ku arkaya waad ka cabsanaysaa ilaahay inaanu ku cadaabin baad ka cabsanaysaa mansilada tani cabsidaa way soo dhaafto waad xishoonaysaa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuu ka xishoonaya dee ilaahayna waa kuu dhowye mar kastaba ilahay qur-aanka muxuu ku tilmaamaya waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibu ujiibu dacwaةa daaci wa qariibu min almuxsiniin ilahay wuxuu leeyahy hadday addoommahaagu ay kaa weydiiyaan addoommahaygu hadday kaa weydiiyaan waxaad ku u sheegtaa fainii qariibun waan dhowahay baa ilaahay yidhi anaa dhow oo ajiibayo maqlaya kay baryaya baryadiisi waxaa rabbi ina leeyahy ma yakunu min najwى ثalaaثaة ilaa huwa raabicuhum walaa khamsaة ilaa huwa saadisuhum walaa adnى min dalika walaa أkثara ilaa huwa macahum aynamaa kaanuu saddex ma faqdo ilaa ilaahay baa ku afaro waa ogyihin rabbi waxay ku faqayaan afar ma faqdo hadday faqaanse ilaahay baa ku shana ama shani ma faqdo ilaahay baa ku lixaa cid kasta in ka badan iyo in ka yari toona ma faqdaba ilaahay le ilaa iyo dadka macoodu yihi idan qofka yaqiinsada inuu ilaahay mar walba taalacanayo yaqiinsada rabbigii inuu ka xishoodo yaqiinsada in ilaahay leeya wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli اlwariid xablulwariidku waa kan baan uga dhownahay baa ilaahay leeyahy qofka sidaa yaqiinsada nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu leeyahay maalan markaynu salaada tukanayno sida laynoo leeyay qalbigiina xaadiriya xadiis sheekheynku ay warinayaan bukhaari iyo muslimba ku yaala ina axadakum idaa qaama yusalli fainamaa yunaaji rabbah war midkiin hadduu istaago uu rabo inuu tukado waar ha ogsoonaada ilaahay buu la hadlayaaye bal ee ilaahay baa kuu jawaabaya alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin markaad tidhahdaan rabbi leeyahy xamidanii cabdi addoonkaygii baa imahadiyey alraxmaan الraxiim markaad tidhaahdo ayaa rabbi kuu jawaabaya maaliki yowm اddiin markaad tidhahdaan rabbi kuu jawaabaya iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin markaad tidhahdaan rabbi kuu jawaabaya idan mar kasta oo aad ilaahay baa le addoonkaygii baa imahadiyey addoonkaygii baa i ammaanay addoonkaygii baa i weyneeyey addoonkaygii waxa uu la yimi waa wixii noo dhexeeyey aniga iyo addoonkayga i weydiiso waxaad doonto markaasaad bilaabaysaa ihdina الsiraaط الmustaqiim waxaad ilaahay weydiisanaysa waa kan sidaa awgeed riwaayaadka qaarkoodna waxay leeyihin fainamaa rabuhu baynahu wa bayna اlqibla rabbiga adiga iyo qibladu idin dhexeeya yacni waa kuu dhow yahay waa kanuu nebigu tilmaamayo inuu ilaahay yihi subxaanaه wa tacaala ana cinda danni cabdi bi addoonkaygu wuxuu iga malaysta u baanahay malahaad adigu rabbigaa ka malaysanaysaa intuu leegi halkaasaan kuu joogaa baa ilaahay leeyahy haddaad i xusto waan ku xusi naftaada haddaad iga xusto anaa tayda kaa xusi haddaad dad dhexdii iga xustana mala ka khayr badan baan kaa xusi haddaad taaka ii soo dhowaato baa ilaahay leeyahay waxaan kuu soo dhowaanayaa dhudhun haddaad dhudhun ii soo dhowaatana baac joog baan kuu soo dhowaan
haddaad socod iigu timaadana aan ordayaan kuu iman baan rabbi leeyahay yacni waxaa rabbi tilmaamaya mar kasta inta aynu inagu alle u jirsanno in ka dhow inuu rabbi subxaanaه wa tacaala kuga abaalmarinayo sidaa awgeed masalada tan waxaynu nusuustan u akrinay waxa weeyaan inuu qofka mu'minka ahi dareemo markuu cibaadaysanayo inuu rabbigii la hadlayo dareemo nolosha meel kasta uu marayo in rabbigii طaalacanayo martabada saddexaad ee ixsaanku waxay culimmadu yidhaha waa martabaة اlأnsi biاllah الاطمئنان إليه والفرح بعبوديته waa heer uu qofku ilaahay weheshado ka soo gudub cabsidii ka soo gudub xishoodkii wuxuu joogaa xad uu rabbigii weheshado weheshigu waa maxay waa ilaahay agtiisa buu muطma'in ku noqonaya markuu rabbigii la munaajoonayo ama uu la xidhiidhayo markaas buu yahay marka uu ugu degan yahay marka aanad manziladan gaadhin cibaadadu culays bay kugu tahay innagu waxaan idhaha war salaadda inaga saara inaga rida waa meel aad ka sii cararayso ama qofku marka uu marxaladan gaadho ilaahay subxaanaه wa tacaala munaajaadkiisa dhadhan u samaynaya waa sababta ay dadka ilaahay ku xidhan habeenkii u kacaanay habeen oo dhan u taagan yihin hurdada wuxuu ka jecel yahay inuu rabbigii munaajaadka la sameeyo noloshiisu waxay noqonaysaa mid rabbigii ku xidhan wuxuu ahaanayaa mid wardiga iyo dikriga iyo cibaadada ka hela iطmi'naanka dadku markaanay martabadan joogin sheekada iyo warkay ka helaan hadduu in yar qur-aan akhriyo waaba cidhiidhi nusa saac hadduu masaajidka fadhiyana wuxuu odhanayaa maantoo dhan masaajidkaa iska fadhiyey nusa saac buu ku jiray laakiin nusa saacaasi wuu badan yahay laakiin maantoo dhan hadduu maqaaxida fadhiyo in waxba ka lumeyn ma rumaysna hadduu 3 saacadood tv-ga daawado in waxba ka lumeyn ma rumaysna waayo yansharix maca dalik waxaanu baranin weli inuu ilaahay subxaanaه wa tacaala agtiisa ku xasilo waxaanu baranin weli alunsu maca allaah ilaahay inuu weheshado la hadalkiisa iyo cibaadadiisa iyo dikrigiisa iyo weynayntiisa waxay naftiisu weli mustariix ku tahay sheekada bini aadamka warka la dalday war aanad waxba ka faa'iideyn mid aakhiriya mid adduunta hore kuu sheegaynin ayaa maanta oo dhan la wadaya ama shaqa aan waxba ka soo baxaynin idan marxalada tani waxay yidhaahdaan moxamed ibnu nadr alxaariثi ayaa wuxuu markuu dadka u yimaado cidhiidhi dareemi jiray bay yidhaahdeen markaasaa abu usama nin la yidhahdaa wuxuu ku yidhi kaannaka takrah an tu'ta waxaad mooddaa inaad necbaysanaysaba in laguu yimaado haa buu yidhi amaa tastawxish buu markaa weydiiyey oo marka aad cidlada joogto miyaad cidlo dareemin markaad cidlada joogto miyaad cidlo dareemin buu yidhi sidaan cidlo u dareemaa buu yidhi anigoo rabbigay xusaya malik ibnu muqafal nin la yidhaahdo isna wuxuu leeyahay gurigiisu keligii fadhiisan jiro markaasay yidhahdaan miyaad waxsha dareemaynin kelinimo oo ma kelinimuu dareemaa buu yidhi qof ilaahay la hadlaya qof rabbigii la munaajoonaya miyaa kelinimo dareema rag badan bay ka soo ururiyeen kelimaad caynkaasa xataa fudayl ibnu lciyaad baa waxaa laga sheegay inuu dhahaa طuubى liman istawxasha min الnaas wa kaana allahu jaliisa waxa fiican buu leeyahy ama waxa wanaag helay ninka dadka istayxaashka ka qaada dadka la joogiisa aan macaansanin ee ilaahay subxaanaه wa tacaala la joogiisa macaansada laakiin culamadu waxay dhaha martabadan waxaa ka sarraysa martabadii ambiyaadka oo ah isagoo khalqiguna waxay xaq u lahaayeen siinaya ayuu haddana rabbigii ku xidhnaa isagoo dadka dhex jooga nabiyullaahi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam isagoo kula dii xaqin xaqiisa siinaya oo dadka la jooga oo la yidhaahdo magaalada addoontu gacanta ka qabsataayo muu ka tegi jiray in ilaa uu danteeda u dhammeeyo oo carruurta salaamayo oo cid walba la jooga ayuu haddana ahaa maxay mid aanu go-in xidhiidhka uu rabbigii la leeyahay saa daraaddeed baa xadiidka tirmidi abu daawud bay warinayaan cabdillahi bni cumar wuxuu leeyahay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam fadhiga uu nala fadhiisto mararka qaarkood 100 jeer baanu ka tirin jirnay isagoo leh rabbi kfir lii watub calaya innaka anta tawaab الraxiim ilaahu dembigayga dhaaf
oo toobada iga aqbal adiga التواب الرحيم إسلام مركا حديث كلا صحيح مسلم كوكله إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة إلهي سبحانه وتعالى بقول معناه دوام حي إسقوا النبي قدتك الله فردي ودتك الله تشوجه أيو ولي يسوي إلهي حسي شري هل كايدتك إنه علماء إنه كسر نقلنا الربين إنه جاروا بحانه محي سبحانه محي هذا إنك أسوأ كبورة كلام هو زاهد ما هو دتك كجواي نعم دتك دبي جودا مركو وتاجوا يسكا جواي لكن كاو حكسي في عن كدتك أنا اللي تشوجه وحين قبنايا لكن أنا دتك كوم المينين isagoo dadka la jooga wardinaya isagoo dadka la jooga ilaahay ku xidhan isagoo dadka la jooga aan aqbalayn inuu xumo dhageysto isagoo dadka la jooga wanaag u sameynaya kaasa ka sii sareeya marka uu nabigu gaarkiisa u baxana de ilaahay buu ku xidhmi jiray mesela salaada caadiga markuu tukanayo wuxuu ilaalin jiray dadka xaajada qaba yani jamaacada muslimiinta حيمانة يقف وين حيمانة يقف ضعيفة حيمانة يقف بكة حيمانة يقف دن لو دقدقية إن لقول دالية مركا معها فرط كعادية هذا ده وده دلني يرى وده حوجنتي إنه يدون كجار السوق بعدين وتسوى أنت عدون تام كده كرتا لكن مساجد عام كا ده كتير هذا بدل الشوغان ده كين حوج لو دالية معها لكن نبي يقوم حوس ما ينشري مركو يسوي تيسا جار كاو بحو أي سلاد دير تكنشري إنه هو عكسه waxaa laga yaabaa faralka in la yaro dheereeyo laakiin sunnaa in faatixadu inaad ku tukato ama birabbina iska ugu dheereeya u akhriyo waa cagsiga waxay ahayd tanbaad xor tahay sunnada cidina adiga naftaada aamiru adiga xor saa daraaddeed ibnu mascuud baa wuxuu leeyahay xadiis saxiixayn ku yaala nabiga calayhi salaatu wasalaam oo habeen tukanaya ayaan sidhi buu yidhi war nabiga iskaga xidho dabeetana وتاجندي بوكبح وايوير حتى هممت بأمر السوء بوليي ابن مسعود إلا أن كهميي أرنحن وكسيدا هو محيرك حنا كهميدي وحن كهميي بيقول النبي قال تاجرنا اسكفرستانو وأرنحن بتلمامية إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وتاجن أرجو فرستو إذا النبي قال دم بي أسميني سمره كليدي سنغضه حذيفة بن اليمان باو حليه نبي قال كحدي عليه الصلاة والسلام هبين سجود تكنية دبيتنا البغروب بلا بيبويري ما كان سانس يبويري لما لا إلا بغلا يدود وجسد الدو جسكوا بغلي الله تبغلي أفرتن ملها وحن سيبويري لا بغلا يدود مركو آخريه والركوع دونا مركاسو كصعد يبويري بغلكي مركو آخرين يبو صعدي وودي waxaan sidii u yidhi malaa un dee suuradda markuu dhammeeyo haddaba suurat albaqara waa imisa 286 aayadood waa 2 jis iyo dheeraad waana ragcad weli waxa loo taagan yihin waxaan sidii buu yidhi malaa markuu dhammeeyo albaqru rukuuci doonaa dabeetana suuratu nisaa buu bilaabay buu yidhi markaasuu haddana nisaa dhameeyey dib buu usoo noqdo haddana suuratu ali cimraan buu bilaabay buu yidhi markaasuu haddana ali cimraan dhameeyey waa 3 suuradood waa 5 jis meelaha ayuu ragcaddii koowaad ku akrinaya waxa kaaga daran siduu u akrinayay mayuu dudubinayay maya rabbigii buu la munaajoonaya la hadlaya wuxuu leeyahay mutrasil buu ahaa si degan buu akrinayay weliba buu leeyahay hadduu soo maro aayad tasbiix ka warramaysa wuu tasbiixsanayay hadduu aayad baryada ilaahay soo maro waa ilaahay buu baryayey hadduu aayad yacni qur-aankuwan uu akhrinayo wuxuu sheegayu la dhaqmayay intaa maxaa dheer wuu rukuucay buu yidhi oo intii uu taagnaa in leeg buu haddana rukuucsanaaday buu leeyahy yacni in 5 jis laga akhriyo ku dhodhow ayuu haddana rukuuc waday wuu soo toosay buu leeyahy oo intii in leeg buu haddana taagnaayo ilaahay baryayey وسجود انت لا يعني وحط الماما يا قيام كيسيه سجود ديسيه ركوع ديسيه وحبا ان اسكو ددوايه قيام قدمو ديرينين ادمانتود بو ديريني waxaan uga dan leenahay arrimaan waxaan uga dan leenoo tilmaamayna ilaahay buu heshanay cibaadada dhadhan u sameeynayay ilaahay inuu ka fogaado baanu doonaynin inuu rabbigii la hadlaabo macaansanay qofku ladadatan macaankan markuu dhadhamiyo
وكجدسين يعني قفك كله ولذلك بس يدو تاجنا نبي عجها برري مركزي عائشة واحد ترى إلهي رسول كيسيو ما حد سيدنا وياليسه إلهي باب الدم بجاجه هري الدم بجاجه دم بعض قدافه دم ببلغوا ما قرينه ما أدنى ست يدوم حتى يسوع عذاب يسوي صمينسه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي وميانا نقونين أفلا أكون عبدا شكورا قف ما هذا النقه إلهي سبحانه وتعالى ونما هذا نقه يا أبو المامي أيها الأحبة وحين الله نمركه إحسان العبادة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مقامات كصد حدابي علماء دكت الماما مقام الخوف والمشاهدة هي مقام الحياء والمراقبة هي مقام الأنس مع الله هنا دادقو إلهي كعب صنع يا وحصة ميسو ورميسانين وكو أركيو يينا إلهي كحشون يسوى درين سنتين وكو طالعان أيو ملك استوات شو كتبه يينا إلهي وهشاني سبا وإنا دساقا لا شوكتواد مع سنسو ولذلك بقى علماء المسلمين تقار كم إذا وحلقة الشيء إنه يقولون شرين جنة الدون كنين كان كل دميني جنة آخرة كاسر دمين قرن مايو جنة الشيء يا وحوي يعني إلهي كحرين كيس إن عبادة الردم كوسا مايسو إن إلهي وين دي سدرنتو إن إلهي وحن معكو سيدرنتو إن إلهي مهدنقي سباديسيت إن ربك سبحانه وتعالى وهشتيت كاسي وإحسان كقيب كمدا إلينا وحين إليه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إحسان كاسي السماية والسمفلو عبادتي إن كل سمفلا إلهي سبحانه وتعالى وحج عليه قوة السمفله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وإن الله لمع المحسنين إلهي آيات بدن القرآن كنت المامية ضدك إحسان كالسماية أجر كودينا إلهي اللو منن إلهي أنت محسن كالسماها سميسة إنه معود أيهي أيها الأحبة هدين ربنا إلهي إنه كوهي ليه إنه كو قرقاره إنه نلاش كوف ضيديه وحينو بهنا عبادة إنه إنه يددن سميسة عبادة إنه يددن سميسة هدو قفكو نوعان نقضه أعماشي سينت الصاحر دانا وحين نقون ساميدو كو إحسان سمينيه ويوحد أجي إنه ربي طالع عنيه إذن في كل أحواله يتعامل مع الله قفر وح كستو قبنا يكيج ما يحق دتك كسهر شيء وحو كيج يا ما هي حق الرب سبحانه وتعالى هدو وح صدقة ضيسنا يو إلهي بيقول وانا يا وح في عبو صدقين يا إيج ما يقف نصينا يا كويه هدو هضلا يو وح ونكسب بشيء وقولوا للناس حسنا بايلاي دتك السما كلها وايو إلهي بو مراقبتي سوقيه إن ربي داوانا يو إلهي بو كحشانين ربي وكم قالوا حفكي سكوحن تاسي واحد كان سنسة هذا الإحسان في العبادة دعوه أوتوماتيكالي وحكرنا لنا إياه معاملات كأقول مين إحسان كسوقلا قفك مؤمن كان معاملات كيس وحي قارن حديث كي صحيحة هاي مسلم صوصر الشداد بن أوس إنه النبي عليه الصلاة والسلام مركو وحكى لنا الشيء إن الله كتب الإحسان على كل شيء إلهي وحولب إن إحسان لو قبطه سفي عن لو قبطه أي ربي فري ضدك وحتى أبا ربي لي هدا وحدي ليس سفي عنه دلع قف دل لو حكومي ومحكمة دل يسو إن تمثيل لو سمايا ما بنانا إلا جوجويا أما الله تورشر قريا أما الله عقابا ما كان ما بنانا حتى هداد وحق ورع يسان بالي دقاقة نافارية وحبات غليسة فأحسنوا الذبح بإلهي قورع وناتشية ووحو النبي عليه الصلاة والسلام مدد هذا يسوغون نيفكو كو أركا إني صوصوفيس راويس كو قورعين مدا كركر يسوان وحبات شراينين هكو قورعين مدي أفبضا هكو قورع والنبي يقول عليه فليرح ذبيحته هاو الراحية نيفكن قورعيه إذن قفك مؤمن كي وحكستو وقبانيه إلهي بكون بنيين الحوالة قلطه لكنها سلعنين سيدا وفضوا ده نفط وقبحي كرتو وقورع بالينا فريا هدي أي مركا دبودو إنه إحسانك عبادة الصمين إنه واحد دبوبيا
إحسaankii layna faray oo dhan ee kale inuu dhab noqdo oo maxaa ka mid ah in waalidkii loo samafalo الدائرة الأولى kuugu dhow waa waalidka in loo samafalo adigoo ilaahay ka cabsanaya subxaanaه وataعaalى daa'irada labaad ku xiga dawi الqurba qur-aanku wuxuu tilmaamayaa qaraabada in loo samafalo daa'irada taa ku xigta kasii agdhadhow mujtamaca intiisa daciifka ah alyataama والmasaakiin iyo والfuqaraa iyo wixii la mid ah in loo samafalo daa'irada kaa kasii durugsan muslimka cumuuman in loo samafalo daa'irada taa ka durugsan mukhaalifka qofka ah xataa kuwaan kula diin ahayn in loo samafalo haddaanu muxaarib ahayn hadduu dagaal kugula jiro mowdic uljihaadda joogo waa gaar laakiin markaa nabad tahay kuwanaa la degantihiin oo kale markay tahay in loo samafalaabaa diintu ina faraysa bale in dadkooda ducafadaa wax la siin karo oo loo samafali karo ducafada aynu sheegaynaa waa maxay cid kastoo baahan gaalka zakaan la siin karin zakada lama siiyo laakiin sadaqada caamkaa waa la siin karaa hadduu baahan yahay hadduu daciif yahay hadduu jaarkaa yahay hadduu qaraabadaa yahay waa la siin karaa sidaa awgeed daa'iradaasaa loo samafaraya markay basharka dhaafto waxaa la yidhi waxaad u samafalaysaa maxay xayawaankii oo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qof dumar ah ayaa naarta ku gashay bisad mukulaal bisad mukulaal bay qof dumari naar ku gashay dabeetana nebigu wuxuu yidhi way xidhay oo waxay cuntana may siinin manay sii daynin dhulkeeda deh u arsaaq tagtee markaa bisad bay toorjar garaysay halkaa bisa ay xidhay kuwa dadka qadinaya maxaad umalanaysa inta meesha ku xidhaa nafta isugu keenaya haddii bisaas la isku cadaabayo cagsigeeda wuxuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam nin riwaayaadka qaarkoodna gabadhba kusoo arortay zaaniyadaba xun ayaa iyadoo haraadan kusoo baxday ceel biyood dabeetana way ku dhaadhacday way ka soo cabtay markay soo baxday ay waxay dabadda ugu timi ey ciidda cunayo haraad daraaddeed haraadan waasay tihi kan wixii hayo kala haya dabeetana dib ba ugu noqoto khufkeedii muuqeedii muuqu waa bahladan khufka ee cagta la gelayo mid ka mid ay intay biyihii dartay afka ku soo qaadda dabeetana waxay soo kortay meeshii way ka soo baxday way waraabisay nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay baa uga mahadnaqay ficilkeeda ay samaysay oo dembigeedii dhaafay lacallaha qad taabat laakiin xadiisku sidaasuu tilmaamaya maxaan uga dan leenahay qofku ixsaanku markiisa koowaad si kastoo aad u ixsaan fasho shareecadu way ku dhawaaqday qur-aanka ku soo aroray waalid ixsaanfalkii jaar ixsaanfalkii qaraabo ixsaanfalkeed qur-aan badan baa ku soo aroray nusuus badan oo axaadiisa ku soo aroray in badan baa culammadu idinka warantaa laakiin waxaasoo dhami waxaynu leenahay waxay ka ratibmaan oo sida ugu fiican loo sameeya markuu qofku rabbigii ku xidhan yahay ee acmaashan uu qabanayo uu ka dhex arkaya rabbigii cidduu la macaamulaya ay tahay ilaahay subxaanaه watacaala hadduu khalqiga u samafalayo xishooduu ilaahay ka xishoonayo cabsi uu cadaabkiisa ka baqayo aragti ilaahay uu mahad celinayo nicmada uu siiyey inuu uga abaalmariyo waxaasoo dhan ilaahay dartii buu u wadaa sidaa awgeed buu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa wax waloo camalo aynu samayno towxiidkaa lagu ixsaan sameeya oo si fiican ilaahay loo qira nebigiisana si fiican loo raacaa loo weyneeya salaadaa lagu ixsaan sameeya oo si qurux badan le loo tukadaa oo ilaahay lagu xidhma soonkaa lagu ixsaan sameeya oo waatii lagu yidhaha ha dagaalamin kana samaynin waa lagu ixsaan sameeya maxaa la yidhaha xajkaa lagu ixsaan sameeya oo qofka xaja falam yarfud walam yafsuq buu nebigu leeyahy aana afxumo iyo faasiqnimo midna ka soo bixinin xajkaa wuxuu ka soo noqdaa baa la yidhi ka yowmi waladatu ummu sidii maantii hooyadii dhashay isagoo dembi mulukkaa waxaasoo acmaali waxay sheegayaan inaynu ku samafallo waxa aynu samaynayno o dhan waxaan u malaynayaa waktigii salaadda waa gaadhi sidaa awgeed waxaynu leenahay qur-aanku alfaadaa tirada badan leh ku soo aroortay ee ixsaanka ka warramaysa dhammaantood waxa ay sheegayaan qofka muslimka ahi inuu samafalo
cid walba u samafalo shaqaalaha ku shaqaynaya ha noqoto yani nabigu wuxuu tilmaamay qofka shaqaalaha war dhididkiisu intaanu ingegin wixiisa siiya buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha meermeerinin ka weecweecinin hore wixiisa u sii qofka mu'minka ahi xaaraanta ka dhowrsigeeda ayuu ku samafalaya dawaataynu dhi wuxuu ka xishoonayaa waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ka ahayn inuu sameeyaabuu ka xishoonaya sidaa awgeed ayuu wuxuu isku dayayaa wax walba ilaahay baa dayna le wadaruu ظaahira اlإثmi وbaطinah in aladiina yaksibuuna اlإثma sayujزawna bima kanuu yaqtarifuun waxaan kusoo koobaya markaa cabsida ilaahay subxaanaه wa tacaala qofka hadday gasho rumaysto inuu ilaahay uu arkayo waxa kale oo dhami way hagaagaan waxay culamada taariikh wariyaan cumar bin اlkhadaab waktigii uu amiiru lmu'miniinka ahaa buu habeenkii intuu ninka haysto ayuu wuxuu soo mari jiray xaafadaha iyo dadka oo wuxuu eegi jiray bal cid cabanaysa wax dhiboo jira kormeer habeen buu soo socday dabeetana wuxuu maqlay xaafad inan iyo hooyadeeda wada hadlaya islaantaa waxay tidhi nacaanihii biyaa ma ku dartay nacaanihii suuqa aroorta la geynayey ayay islaantu rabtaa in la badxo biyo lagu daro markaase inantay waxay tidhi hooye cumar baa mamnuucay oo yidhi lama ogola caanaha in biyo lagu daro islaantii baa waxay tidhi ina amiiru اlmuuminiina laa yaraaka laan laa yaraaki اlآan amiiru اlmuuminiinku dee hadda ku arki maayee tire shaqada inoo qabo amiiru اlmuuminiinku hadda ina arki maayee shaqada qabo bay tidhi inantii baa waxay tidhi إida kaana amiiru اlmuuminiina laa yaraana faina rabu amiiru اlmu'miniina yaraana haddaan madaxweynuhu ina arkaynin amiiru اlmuuminiinka rabbigii baa ina arkaya bay tidhi ilaahay baa ina arkaya sidaa awgeed ma suurtagala bay tidhi inaan markuu amiirulmu'miniinku ama ilaahay marka dadku joogaanna inaan ateeco markaan keli u baxana inaan caasiya suurtagal maaha marka dadku ay arkayaanna inaan ilaahay ka cabsado aanan caanaa badxin marka aan gaar u baxana inaan wax badxa suurtagal maaha waxay yidhaahdaan cumar baa guriga albaabkiisii buu calaamadiyey dabeetana waraysi buu doonay war reerkaasi waa kuwama reerkii baa loo sheegay inantii baa looga warramay inantaa miyaa la qabaa may inamadiisiiba isugu yeadhay dabeetana wuxuu uhi waryaadhe anigu nin weynoo da-aan oo hadda dumar warkood ma hadal hayo laakiin haddaa cid un guursanaysaan reerkaa inanta joogtaa waa inan ilaahay ka cabsanaysee warardoo taa guursada inamadiisii mid ka mida baa guursaday waxay idhahdaan waa cidduu ka tafiirmay bay idhahdaan cumar bin cabdilcaziiz amiirulmu'miniinkii cadaaladda badnaa ee iyaga ka dambeeyey waa tafiirtii gabadhaa yar baa la idhahdaa oo habeenkaa dhegaysanayey cumar ibn khadaab waxaynu uga dan leenahay haddii uu qofku ilaahay cabsidiisu ku waaweynaato oo uu cibaadadiisa ixsaan ula yimaado cibaadadaasa waxay keensanaysaa inay xumaha kaloo dhan ka reebto iyadaa keensanaysa hadday salaadiisu dhab noqoto uu rabbigii habeenkii ku xidhmo waxay idhahdaan markii wakhtiyadii hore nin baa ayaa qola saxaaba yidhahdaa ninka hebele habeenkiina salaaduu tukadaa maalintiina waxbuu yaro qaadqaadaa nebigoo maqlaya calayh isalaatu wasalaam markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sidaa aad sheegaysaan hadday jirto ina salaatuhu satanhaaha buu nebigu yidhi salaadiisaa ka reebi doonta yani war kale uma baahna hadduu nin habeenkii intuu istaagan yahay oo rabbigii ku xidhma dabeecada noocaasi ah inuu rabbigii ku xidhan yahay iyadaa samayn doonta buu nebigu leeyahy inay noloshiisa kantaroosho oo gacantiisa kantaroosho u qof dhowr soo noqdo daba ayuha alxiba waxaan leenahay meel kastoo aad joogtaan ilaahay ku xidhma ku xidhnaantaynu ilaahay ku xidhanayna xidhnaan dhadhan samaynaysa aan ku xidhnaano in
inay cibaadadaynu samaynayna noqoto cibaado macno samaynaysa cibaado aad dareemayso rabu الsamaawaati wاlard biyadihi اlmulk wahuwa calى kuli shayin qadiir inaad ku xidhanto la hadlayso maanta hadday wax yare ku qabsadaan dadku waxaa laga yaabaa inuu cararo markiiba ka fekero wartalow yaa igu dhowaanu tagaa saaxiib qaraabo tol ya waxaba albaab ka dhow baa jira haddaad barato albaab haniya oo wax waliba agtiisa yaalinoo ka dhow baa jira waa intaad habeenkii istaagta inaad rabbiga baridid oo tukatid albaabka ilaahay baa ka basharka ka dhow laakiin maadaama maadiyaadku inagu tiro bateen akhiiran waxaynu noqonnay dad asbaabtuun ictimaado unoo sababtu ay u muuqato laakiin rabu الsamaawaati walardi musabibu lasbaabka baanu inoo muuqanin sababtaba ilaaha fudaydiya idan haddaynu rabno noloshan adduun inay fududaato dadka marka la yidhahdo cibaadaysto caynkan waxay ka fakeraan unoo is idhaahdaan dee aakhira loo jeedaa inay ku anfacdo war aakhira uma jeedno tan bay ku anfacaysaa tan aynu joogno aynu rabnaa wixii hagaajin lahaa nolosheenna inay nolosheennan adduunyo shaqadeennu aqoonteennu cilmigeennu caafimaadkeennu tacliinteennu dadnimadeennu inay hagaagtaynu rabnaa waxaynu leenahay waxay ku hagaagaysaa markaynu xidhiidhkeennu ilaahay la leenahay uu qurux badnaado markaynu gaadhno xad ducadeenna rabbi aqbalo markaynu gaadhno xad waxaynu doonayno inuu ilaahay weydiisano xad aynu basharkaba ka maarmi karno oo alunsu maca allaahi gaadhno inaynu ilaahay u heshanno oo markaad qur-aanka akhrinaysa uu dhadhan kuu sameeyo kuu macaanaado oo markaad salaad tukanaysa uu kuu macaanaato oo markaad wardinaysa ay kuu macaanaato oo cibaadaadku dhadhan kuu sameeyaan oo xumuhu kala qadhaadhaado xumuhu iyo xanta iyo warka torrogta iyo beenta iyo waxaan adduun iyo aakhira toona wax ka tarin dadku inta badan wuxuu wadaa kuwa psychologiga waxay idhahdaan marar badan baan bini aadamku caqligiisa isticmaalin bay idhaahdaan ee bulshada iyo dadka iyo waxaan u arkay iyo waxa uu iskaga dhaqmaa waayo hadduu caqliga isticmaali lahaa bay leeyihin wax badan muu sameeyeen inaan dadku caqliga isticmaalin miyaa u baahantihin proof soo dadku sigaarka ma cabo muxuu taraa cid tidhi sigaar baa wax tarta miya maqasheen mid caalima mid culamaa mid saynisyahana mid cid tidhi sigaar baa faa'iida le ma maqasheen maya waxyeelle ma leeyihi dee kuwa soo sameeyaa dusha kaga qoray sigaarka dushiisa maxaa ku qoran war waa khatare ha isku cabbin waxaa laga qaadaa kansar iyo waxaase waa khatare ha cabbin baa ku dul qoran dushiisa ku qorantay ka warra adigoo arkaya haddii lagu idhaha caagadatani war waa suna ha isku cabbin aad tidhaha may waa iska yaro qurqurinaya caqligu miyuu jiraa mise ma jiro yani caqliga lama isticmaalin idan bini aadamkan aad arkaysaa marar badan buu isagoo caqligiisa qaba uu diidaa inuu isticmaalo oo naftiisa iyo shahwaatu nafsi iyo waxa iska doondoonayso kale uu isticmaalayo matala khamri aadanahoo dham wuxuu rumaysayay one of the poisonous waxyaabaa ugu boysinsan dunida inuu ka mid yahay alcoholku waa poison waxba ma taro haddana waddanada aleedin horay u mareen waxay idhahdeen laba habeen dadku way fasaxayiin inay waashaan shanacshana waa la shaqeeyaa labana waa la waalaadaa waddanka in yaroo ilaalisaa looga tagaa oo la yidhaahdo iyagu gaadhkay ku jiraan iyo waxaasay ku jiraan intaasaa waddanka o dhan ilaalinaysaa waddanka intiisa kale maxay labada habeen u fasaxiyeen inay waashaan ka warran dad dhan oo isku waafaqay ummadda intay ugu badanay laba habeen ha waalato in yarina ha miyar qabto waddanka ha ilaaliso yani ma caqligaa la isticmaalay waxaan uga dan leeyahay war diintan iyo cibaadaadkan haddaa si dhaba u raacdaan caqligiinaa ifi doona caqligiinaa noqon doona ku garta maxaa wanaaga maxaa xuma ah qur-aanka iyo diintana akhriyaysaa baa dhadhan idiin samayn doonta marka waxaad macaansan doontaa oo dhadhan kuu samaynaysa ilaahay ariiqiisan inaad hayso aakhirana kulama sugaysee inaad dunida tan ilaahay uu abwaabteeda kuugu furo qanaaco kugu siiyo waxaad heshaad ku qanacdo noloshana ay kuu macaanaato samaysmaya idan waxaan leenahay alixsaan fi lcibaada ixsaanka kale laga warramo oo dhan isagaa fura u ah waalid ha loo samafalo jaar ha loo samafalo asagoon ha loo samafalo masaakiina waxaasoo dhan waxa fura u ah kani hadduu hagaago
hadduu hagaago xidhiidhkaynu ilaahay la leenay subxaanaه wa tacaala oo nebigu markii la weydiiyey uu ku tilmaamay an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraah fainahu yaraak salى اllahuma calى nabiyina mxamedi wعalى alih وصaxbi وsلم والحمد لله رب العالمين إلهي جدك قمنا هين وهنوني السلام عليكم